محمد نبينا بنور هدينا من waan jayni suubanaay mashiikhdayna noo joogta culamaa udiinka oo waddanka culmo ka ahaya noo joogaan shiikhayni oo shacabdulmaan soo ziyaarteen ilaahay ha noo aqbalo ducada allah ha noo aqbalo tabankootata lama arkin ilaahay ha noo aqbalo haddeenna waxaa lama kiman oo dhahaaya sheekh xuseen macalin axmed oo ka dale u taqaaniin waxaan galabta ku kulansannahay ziyaaradii sheekh cabdi cumar soo dhawaada magaciisu soo dhawaada shiikhayni aad taariikh ahaan u taqaaniin oo faafinta diinta islaamka cimrigiisa u yaboohay laga dhaxlay waxaad og tihiin ziyaaradiisa ayaan ku kulansannahay waxaa ugu soo dhoweeyey ilaahay jannadaha ka waraabiye shiikhayna sheekh maxamed iyo maqaamkii noo fadhiya diinta laga faafinayaana sidii waxaa nasiib wanaag ah oo xilqadan galabta dhex taagan shiikhayni shiikhu dariiqaha shiikh shuute shiikh shariifow shiikh mukhtaar sheekh maxamed shacalmay waxaa jooga culamaa udiin kaloo fara badan oo ziyaarada nala jooga laakiin hadda aan xilqada dhex taagnay waxaan marka galabta jecelnahay in shiikhayna shiikh shuute laba kelmo oo wacdigeena yidhaahdo sidii caadada noo ahayd shiikhayna sheekh maxamedna oo noo duceeyo oo aan annaguna niyad wanaagsan ku aaminsanno sheekh shuute fadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مركا شيء بشيء كوين وكور قبلنا قفك هدي توحيد كأوفرته لا إله إلا الله أو يراده وحكو واجبين الصلاة marka salaadina waxa loo baahan yahay qofka markuu dukanayo in yaani khushuuc laga rabo waa ogtihiin ilaahay wuxuu leeyahay qad aflaha almu'minuun alladheena hum fi salaatihim khashi'un macnaha waxa waaye dadka waxa liibaanay dadka mu'miniinta liibaanay mu'miniintaas alladheena kuwii waaye fi salaatihim salaadooda khashi'un ku khushuucsanaya marka khushuucaas salaada waa la iska rabaa haddii salaad aan khushuuc lagu dukanin salaadii waxay gelaysaa halisay gelaysaa marka taa ajligeed dadka waxaa la faraya ay diinta faraysaa in khushuuc ay ku dukadaan sida hadda aayadda ay sheegayso waxaadna ogaatiin anna alghaflata sakrun qabiixun min sakri alkhamr ghaafilnimada macnaa salaadda markii la dukanayo oo ghaafilnimo lagu dukanaayo sakri khabiix ah inay tahay min sakri alkhamri oo kale ay tahay lianna alkhamra khamrada تمنع العقل عقلك من عسائي باب إيسا والغفلة غافل لمدنة تمنع الحق حقيقة مرك أذيك إلهي حاجة كلاذا فكيف تمشي إلى الله في غفلتك إلهي أذو عابد آية كذا بغافل لمكو عابد مدعك بس يعني هل سوى إلهي وقلنا ليه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلهي وحولي إلهي رسول في كرميانو لا تقربوا الصلاة والصلاة أدواننا وأنتم سكارى أذيكم وريثنا عمرياك معناها وحواي كان خمري كوريري إيه كان غافل لماذا الدنيا كوريري كان غافل لماذا الدنيا كوريري يعني سيح محايل من إلهي عابدها ينجوغن والدنيا كم مغن محاكحن يا واد دباتي وحمدوا مركز صلاة وحلو باهنيا مركز لدكانايو إنان غفل لو عابدين إلهي أو قلبك يعني كانوا حاضر لا هذا هو يعني قفك وكنت كذا يعني مكو عبادي سنة وحلو الرباء وحلو باهنيا قلت ظاهرك وحي أبادنتهي سومالي ده ظاهر كودا صلاة إنه أنصح محايا إلي حمنها وإلهي لو عابدو محايا صلاة استاقي ليدهي ركوعي ليدهي
sujuuday leedahay fadhiyay leedahay muga waxaa loo baahan yahay dumaaniin ayaa loo baahan yahay marka nimaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisa masaajidka soo gal markaasuu dukaday markaasuu nabigu u yimid waa salaam markaasuu nabigu wuxuu yidhi adiga ma dukanayna bax dukow yidhi ninka waa baxay haddana mar labaad oo weyse qaatay waa yimid nabigu hortiisa ku dukaday nabigu u yimid waa salaam markaasuu yidhi adiga ma tukanin bax dukow yidhi haddana ninka waa baxay mar kaleeto uu soo weyse qaatay haddana sidii oo kale u dukaday marka kale wuxuu yidhi ilaahay xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartee sidaan si ka wanaagsan amabu aqaano salaad inaan wanaajiyo ayaan u qabaa marka nabigu wuxuu yidhi idaa qumta ila salaad salaaddaa u istaagtid fakabiruu ilkibaara allahu akbar dheh uma aqra' maa tayasara macaka min alqur'aan markaas qur'aanka wixii kuu fududaada akhri xadiidaa ka horeeya wuxuu leeyahay ninkaan faatixada akhrin salaadba ka ansixi mayso faatixada horaysa kabacdi intaa kadib wixii qur'aanka kuu fudud akhri waayo macnaha marka salaadda waxaa loo baahan yahay muggaasuu yidhi nabiga uma rukuucuu yidhi xataa tadma'ina raakican ilaa aad ka ahaatid nin rukuucsan ilaa aad ka ahaatid rukuucsanow lama rabo sidii door biyo cabaysoo kale saas la yidhaha kuwa qaarkiisa waxaad arkaysaas markuu yidhaha waa joogsaa waa socotay salaad ma aha saas markii saas loo rukuuc horta lagu xasilow rabaa rugni waaye min arkaani salaad muga haddii adiga rukuucdii ood saas yeeshid maxaa kuu ansaxaya marka horta waa inaad rukuucda ku xasishaa markaad joogsatidna ilaa aad ka noqotid nin taagan aad ka noqotid waa inaad taagnaataa muga waa inaad sujuuddaa ilaa nin sujuudsan aad ka ahaatid waa inaad sujuudsanaataa muga waa inaad fadhiisataa ilaa aad ka ahaatid nin fadhiyayna dhaha ilaa aad ka ahaatid marka baaraka allah fiikum waxaa loo baahan yahay salaad horta soomaali lama faraayo laakiin salaadan khushuuca loo baahan yahay qalbiga inuu xaadirsanaadana waa loo baahan yahay ninka markuu salaada dukanaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidul qudsi uu noo sheegay wuxuu leeyahay ilaahay wejigaaga oo wejigiisa ku aadina haddaadba milacsanin oo meel milacsanin ilaahay wejigaada oo wejigiisa ku haynaa haddii laakiin meel aad milacsatid oo qalbiga aad meel ka milacsatid ilaahay addoonkayga haddii indhaha makaan sujuudka inaad ku haysidaa la raba qalbigan inaad ku haysid tadabbur iyo aayaadka ilahay inaad ku fiirfiirsadaa lagaa rabaa marka qalbigaadana waa inuu jeedsanin adduunya marna ay milacsan adduunya oo xaqiir ah waa ogtihiin waxay dhan tahay waa ogtihiin nin la dhihi jiray laxaaki ayaa beri nabigu weydiiyey wuxuu yidhi laxaakiyo maxaad cuntaa wy markaasuu ilaahay rasuulkiisa hilib iyo caanaan cunaa wy uma maadaa yacuudu yidhi waxaad cuntid maxay noqonaayeen wy ilaahay rasuulkiisa waxaad og tahay noqonaayeen wy ilaahay adduunya waxaad cuntiduu noogu masalo wy shalay waxaad cuntay doolarka aad ka bixisay markii caloosha ay maraan ay soo baxaan qaada dii lagu ama yeelay adduunya dhanba xaqiir waa taasay la mid tahay adduunyada dhanba wuxuu ilaahay oo nabigu ku masalay bal arag waxay tahay arag qiimaheedu waxay tahay arag muga adduunya markii salaad aad geshid oo rabbi aad caabudaysay markaad oo bannaanka u baxdid oo adduunyada xaqiirka ahayd oo xaggeeda aad milacsatid maxaa tahay marka adig waxaad milacsatid ma aha wax kale maaha xaarkaasaad milacsatid maxaa waaye wax kale maa milacsatid baaraka allah fiikum wakti waaye amiin sayd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ بركة وعديس بركة الله نوعى فيها كلنا الله سهل دعاء الدعاء معنا الشيخ النوشة وعدي هاي وخير كهاي إلهي أن وانفع الله نور كيس على نوزيات الحمد لله والثناء لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعدم مغفرتك والسلامة من كل اسم وغنيمة وكل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار آمين آمين ولا دين إلا قضيت ولا حامل من الحزب آمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالرحمة تغنينا عن رحمة ما سواك واجعلنا بمن توليت ووالاك واشغلنا بما تبلغنا بولاية رضاك يا الله يا الله يا الله يا من لا يدعى بهذا الاسم سواه يا من ليس لنا غيره إله انظر إلينا وأقبل بوجهك علينا وعاملنا بلطفك الجميل وقلبنا ما أنت أهله إنك أهل المغفرة اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بك اللهم من خزي